kusoo dhawow qaybta muuqaalada barashada ee ogowi tilmaamaha xirashada iyo iska saarida qalabka ilaalinta ee shakhsiyadeed. Xirashada afsaab ayaa ah mid ka mid ah tallaabooyinka ka hortagga ee yareyn kara faafidda COVID-19. Si kasta ha noqotee, adeegsiga afsaab oo keliya ma bixisa heer ilaalin oo kugu filan. Aad ugu dadaal inaad guriga joogto, laakiin haddii ay lagama maarmaan noqoto inaad baxdo si aad hawlahaaga u soo dhammaysato, fadlan xidha afsaab markaad u baxaysid dibadda si aad u badbaadiso dadkeena waayeelka iyo dadkeena nugul inta ay socoto aafadani. miyaad ogtahay afsaabka ayaa gabaabsi ku ah xirfadlayaasha caafimaad? fadlan xusuusnow in afsaabka qalliinka iyo N95 loo reebo shaqaalaha caafimaadka iyo kooxaha gurmadka. Markee ayaad adeegsan kartaa afsaab? haddii aad caafimaad qabto, waxaa keliya u baahantay inaad xirato afsaab haddii aad daryeelayso qof looga shakisan yahay inuu qabo caabuqa. 2 xidho afsaab haddii aad qufacayso ama aad hindhisayso. 3 afsaabyadu waxaa keliya waxtar leeyihiin marka talantaali loola adeegsado gacmo dhaqis joogto iyadoo la isticmaalayo saamuun iyo biyo. 4 haddii aad xirato afsaab, waa inaad taqaanaa sida loo adeegsado loona tuuro. ha taaban afsaabka intaad adeegsanaysid. haddii aad taabatid, ku nadiifi gacmahaaga saamuun iyo biyo. ha ka laalaadin afsaabka qoorta ama dhagaha. ku beddel afsaabka mid cusub isla markuu wasakhoobo, dibna ha u adeegsan afsaabyada loogu talagalay in hal mar la adeegsado. si aad iskaga saarta afsaabka, marka hore ka saar xagga dambe. ha taaban xagga hore ee afsaabka. si degdeg ah ugu tuur qashin qob fur leh. ku nadiifi gacmaha saamuun iyo biyo. xusuusnow in afsaabka oo keliya aanu kaa ilaalin karin COVID-19. ka fogo ugu yaraan 2 mitir dadka kale. si joogto oo waafi ah ugu dhaq gacmahaaga xitaa markaad xiranta afsaab. dadka leh astaamo waa inay xidhaan afsaab. xirfadlayaasha caafimaad iskarantiilaan oo ay si dhaqsaa u raadsadaan talo caafimaad marka ay dareemaan jiro. calaamadaha guud waxaa ka mid ah xumad, daal, qufac, cun xanuun iyo neefsashada oo adkaata. waa muhiim in la ogaado in astaamaha hore ay isku arkaan qaar ka mid ah dadka qaba COVID-19 ay noqon karaan kuwa sahlan. raac tilmaamahan kor ka xusan ee ku saabsan sida loo xidho, la iskaga saaro, loona tuuro afsaabka caafimaad. raac dhammaan tallaabooyinka ka hortaga ee kala khaasada nadaafadda gacmaha iyo kala fogaanshaha dadka. xidha afsaabka caadiga marka aad goobaha dadweynaha joogtid. maryaha lagu daboolo wejigu waa tallaabo kale oo lagu curyaaminayo faafidda COVID-19. marka talantaal loola adeegsado tallaabooyinka ka hortaga ee maalinlaha iyo kala fogaanshaha bulshada ee goobaha dadweynaha. doorashooyinka weji daboolista ee lagu adeegsan karo goobaha dadweynaha waxaa ka mid ah cumaamad, masarka binka madaxa ee caadiyan looga hoos xidho xijaabka, cumaamada, dharka ama maryaha kale. waa inay si wanaagsan kuu leeyihiin, si fudud loo dhaqi karaa, kuuna saamaxaan inaad si fudud u neefsato. habka afsaabka maradaha loogu xidho qaab badbaado leh. afsaabka marada ama weji daboolayaasha waa in la beddelaa ama la nadiifiya haddii ay wasakhoobaan. waxaad dhaqi kartaa afsaabka marada adigoo si waafa ugu dhaqaya gacmaha. haddii aan la heli karin qasaalad islamarkaana adeegsanaya saamuun iyo biyo dooran oo kulul, u oggolow in gebi ahaanba qalasho ka hor inta aanad mar kale xidhan. waa muhiim in la ogsoonaado waxyaabahan soo socda marka la adeegsanayo afsaabka caadiga ah iyo weji daboolayaasha. ha adeegsan afsaab u muuqda mid waxyeeloobay. ha xiran afsaab wasakhaysan ama qoyan. ha ku xiran afsaabka sanka hoostiisa. marnaba afsaabka caadiga ah ama weji daboolahaaga ha la wadaagin cid kale. ha taaban afsaab caadi ah ama weji daboole qof kale leeyahay. ha u oggolaan dadka kale inay qabtaan ama hayaan afsaabka caadiga ah ama weji daboolahaaga. haddii la adeegsada ama aan la adeegsan afsaab, fadlan sii wada nadaafadda gacmaha. raacidda tilmaamaha iyo tallaabooyinka wasaaradda caafimaadka ayaa muhiim u ah ka hortagaysa gudbinta cudurka ee bini'aadamka. samee nadiifi gacmaha ka hor intaana taaban afsaabka. eeg inuu afsaabku waxyeeloobay ama wasakhaysan yahay. ku beeg afsaabka wejigaaga adigoon dhinacyada banaynin. dabool afkaaga, sankaaga iyo garhkaaga. ha taaban afsaabka. hubi inaad ka dhex neefsan karto. nadiifi gacmaha ka hor intaanad iska saarin afsaabka. furfur xarkaha dhagaha ama madaxa dabadiisa. kasoo riix afsaabka afkaaga.
كرد أفسابك باع بلاستيكا ونظيفة أفكنا لغا حيري كارو هادي آني وسخ أهين أم بقوينين أو أدربتين دو هاديك ستيد قبا حركا أفسابك مركات كسو سارتيد بعدا كودق أفسابك سامون أما تير عاديا هالمر مالنتي نظيفي كعباها كتيب مركات سكسارتو أفسابك هاسمين هاديك سن أفسابك قلينك أما قلبك كليلي على ذي اللوغو تلقى للشقالة عافماتك markaad xirato afsaab waxaad ilaalinaysaa dadka kuwaaga xeersan laakiin fadlan xusuusno in afsaabka oo keliya aanu kaa ilaalin karin COVID-19 sii wad inaad dadka kale u jirsato ugu yaraan 2 mitir sidoo kalena si joogta oo waafica u dhaq gacmahaaga xitaa haddii aad xiran tahay afsaab xusuusnow waxaanu xiranaa afsaab si uu midkeenka kale u ilaaliyo ee maaha inaga ayaa iska baqayna afsaabku wuxuu muujinayaa daryeelkii jacaylka aad u hayso ayayda awowga waalidka ardayda dariska iyo dadka kale ee bulshadaada dadka muqalkooda hooseeya way ku adkaan kartaa inay wada hadal la yeeshaan qof xiran afsaab maadaama uu jabaqda hadalku yaraanayo fadlan tan maskaxda ku hay markaad xiran tahay afsaab ee aad la hadlayso qof muqalkiisa hooseeyo miyaad ogtahay in wasaaradda caafimaadka dhawaan soo saartay xog bixiyaha COVID-19 ee WhatsApp-ka qoraal u dir ebereber 525 6136 ebereber 7 ebereber si macluumaadka saxda ee aad uga hesho af Soomaali haddii aad leedahay astaamaha COVID-19 sida xumad qufac iyo neefsashada oo kugu adkaata raadsi daryeel caafimaad laakiin hore u sii wac telefoonka 449 343 988 haddii ay suuragal tahay isla markaana raac tilmaamaha moobilka caafimaadka ee deegaankaaga